magaalada Berbera 24 saacadood ugu dambeeyay waxaa ka da'ay roob aan wax duufaan wadanin. Roobkani ayaan wax khasaare nafeed geysanin. Suuqyada iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera ayaa waxa fadhiistay biyo. Sidoo kale magaalada intuu roobkani uu ka da'ayay waxa ka maqan korontadii magaaladaasi u bixi jirtay. Xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde warbaahintu wax ka weydiisay khasaaraha ka dhashay roobabkani ilaa maalinimadkii shalay ka da'ayay magaalada Berbera. ayaa waxa uu sheegay inaanu roobkaasi aan wax khasaare ah geysanin isagoo fariin u diray bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Berbera inay iska ilaaliyaan goobaha biyo fadhiisinada ah. waxaan warbixinta ugu dambeysay ee magaalada Berbera roobka ku saabsan baynu maartay halkan ka jeedinaynaa. marka hore ilaahay waan mahadnaqaynaa 4 saacadood u dambeysay roobkii magaalada Berbera ku da'ayay iyo guud ahaan gobolka saaxil iyo xeebihiisa inaan ilaahay waxba inagu yeelin. marka laga tago laba guri oo maxay tahay xaafadii hore ee Daarul ah qadiimka ahaa oo guri kharaabad hore oo maran ahaa uu dumay gurina lagu jiray oo dhinac wax ka noqday laakiin cidna aan wax ku noqonin iyo hal masquul oo xaafada Finland ka duntay intaas wax la soo sheegay ilaa hadda waxa aad noola shaqeynay guddiyada xaafadaha 5 xaafadood iyo dawladda hoose waxda arrimaha bulshada aad wada shaqeynaya wax dhibaato oo kale ma jiraan magaalada meelo badan baa biyo fadhiyaan runtii roob fara badan baan ku da'ay wax daado ilaa imika ina soo gaadhina ma jiraan waxa kale oo runtii farxadina oo dhamaanteen in labadii dooxay waaweynaa shalayto aan ka hawlgalay labadaba aynu xidhnay isla shalaytoba gelinka toban shaqaas dhamaatay maanta iyo Britana gaadiidka ay wali joogaan oo maxay shaqadii sii socoto lagana yaabo saadameyn si fiican ugu dhamaatay laakiin maanta xataa haduu daadad soo rugmadaan dooxdaasi way xidhan yihiin oo sharaf weyn bay noo tahay karaamo marka intaasba maxay tahay war cusub jira waxaan doonaynaa inaan dadweynaha reer Berbera gaar ahaan xaafadaha Daaroole iyo Barwaaqo iyo xaafada Sabon Wanaag leedahay wada jir ka tirsan inaan maxay tahay siino digniin ah in wali roobka soconayo walibana laga yaabo galabta ama berito inay waxoogay dabaylaha jiraan sida saadash sheegayso marka inay ka digtoonaadaan inaguna dhamaanteen waxa weeye waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka bilayska iyo maamulka gobolka oo barasaabka ugu horeeyo runtii nala garab taagan wada shaqeyn xoogan waxaan kala mar labaad u mahadnaqaynaa gaadiidleyda shirkadaha dhismaha oo gacan weyn ka qaatay inay dooxada nala xiraan aad iyo aad qaar kamid ah bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Berbera oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa Allah subhanahu wa ta'ala waxay uga mahadnaqeen roobkani uu u shubay roob nimca ay badan ayaa Ilaahay minasiye gobolka Saaxil hadaan u nahay saddexdii galabnimo sidoo noogu bilaabay ilaa xal roobkaas waa nagu daayay wax dhibaato oo hadii Ilaahay ku reey dadka u geystana ma jirto Ilaahay baan ku mahadinaynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin gobolada kalena waxaanu leenahay ku xamdiya hadii la nabad ilaaliya shalay maqribkiisu noo qabtay magaalada Berbera ilaa xalay waagu nagu bariyay magaaladana biyo way fadhiyaan nimcada Ilaahay baa iska leh wax khasaaraan anigu dhigtay doorta may maqal inkastoo biyo fadhiyaan oo la subax ilaahay haddana alxamdulilaahi rabbil caalamiin Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Badda Cas magaalada xeebta Berbera.